ورحمة الله وبركاته walaalaha qiimaha qaayaha badan soo dhawaada mar kale iyo xalaqo kale iyo koorsadeenii project budgeting waxaan soo qaadanay qaybo muhiim ah oo project budgeting ka mid ah waxaan xalaqadeenan insha allahu tacaala ku qaadan dhigi doona hadduu ilaha yidhaahdo methods of budgeting noocyada miisaaniyadaha ama qaybaha miisaaniyadaha. yacni miisaaniyad haddii la yidhaahdo imise nooc ayay u kala bixi kartaa. Common types of budgets ayaa jiro, ilaa 4 qaybood ayaa lagu soo koobaa. Company walbana wuxuu isticmaalaa 4taasi mid ka mid ah. 4taasi miisaaniya nooc oo miisaaniyadda loo diyaariyo ayaan insha allahu tacaala si kooban in kula wadaagi doonaa koorsadeena hadduu la yidhaahdo. 4ta nooca ugu horeeya waxaa la yidhaahdaa incremental budgeting. macnaha waa miisaaniyadda kororta ama ziyaada. Incremental budgeting waxaa loo sameeyaa sida tan. waxaa lasoo qaadanayaa actual budgetkii sanadkii lasoo dhaafay, waxaa lagu darayaa percentage oo boqolkiiba intaas ah, kadibna waxaa laga soo saarayaa miisaaniyadda sanadkan. maxaan dhahnay incremental budgeting waxaa lasoo qaadanayaa miisaaniyaddii sanadkii hore, tii anaga aan sameynay maaha, waa actualkii soo baxay, dhab ahaan miisaaniyadda dhabtee soo baxday ayaa lasoo qaadayaa. waxaa lagu darayaa oo macnaha qeybahaan loogu darayaa percentage oo waxaa laleeyahay waxaan ku siyaadinaynaa boqolkiiba intaas, kadibna waxaa ka soo baxaya miisaaniyadda sanadka kan ama sanadka cusub aan u rabno. waa iska fududahay marka, si fudud ayaa loo diyaarin karaa, si fudud ayaa loo soo bandhigi karaa. waa midda ugu isticmaalka badan ee kambaniyada ay isticmaalaan. sababtan waxa weeyaan waa sahlan tahay, fahamkeedana waa fudud yahay. sidaa awgeed waxaa qof walbo ama kambani walba uu door bidayaa in sanadkii hore miisaaniyadiisa intuu soo qaado percentage uu ku daro. Incremental budgeting waxay munaasib u tahay in loo adeegsado haddii kambaniga costiskiisa isbadbedel aysan sameyneynin sanadba sanadka kale. yacni haddii shaqada isla qaabkii un ay tahay, costiga uu noqon karo muxuu ahayey basic costiska aysan wax badan iska bedeleynin. variable costiska mararka qaarkood waxaa iska badbedelanaya, laakiin fixed costiska inay mar walba sidoo iska ahaadaan ay u badan tahay sanad walba sanadka kale aysan waxba isbedeleynin. waxaa habboon in la isticmaalo qaabka kan ee aan soo sheegnay. yacni in percentage lagu siyaadiyo oo la yihahdo wallahi miisaaniyaddeena sanadkii hore intaas ayay noo ahayd. department walba ama qeyb walba oo ka mid ah income-ka ama qeyb walba oo ka mid ah expenseska waxaan ku daraynaa percentage-kaasaan ku siyaadinaynaa in la yihahdo boqolkiiba 5, boqolkiiba 10, boqolkiiba 20, boqolkiiba 2, boqolkiiba 3 intii markaas kambaniga munaasib u arkay. miisaaniyadda qaabka noocan oo kale loo sameeyo oo incremental budgeting la yihahdo ceebo ayay leedahay oo haddii la isticmaalo waxyaabo ka imaanayaa jiro. ceebaha ay leedahay waxaa ka mid ah insufficient wax la yihahdo ayaa ka dhalanaya. yacni ku filnaansho la-aan ayaa ku dhalanaya, inaysan macnaha ku filneen qaabkii ama aan rabnay miisaaniyadda inaysan u daboolin anaga shaqooyinkeeni. marka inefficiencies aan idhaahde ayaa ka jiro. tusaalan haddaan soo qaadano, haddii qofka managerka uu og yahay in oo korarka imaan kara sanadka soo socda boqolkiiba 10 uu yahay sanad walba, hadduu intaas filanayo wuxuu xooga saari doonaa, ka faa-iideysan doonaa fursaddaas si uu u gaaro miisaaniyad weyn oo sarreyso. laakiin wuxuusan juhdi ku bixin doonin, dadaal uusan ku bixin doonin raadinta qaabka loo yareyn karo costiska
ama wax loo beekaamin karo. yacni miisaaniyaddani waxay xoogga saaraysaa oo keliya ah sideen wax ku kordhinaa oo miisaaniyaddeenaan kor ugu qaadnaa, percentage unbay raadinayaan. laakiin waxaa xooggooda dhan iskugu tegayaa sideen fursad ugu faa'iidaysanaa. marna xoogga ma saarayaan sideen qarash ku yaraynaa. marka dhinacii qarash yarayntii ayaysan xoogga saaraynin. sanadkii hore expenseskeen intaasay la ekaayeen. sanadkan expenseskaas maxaan ka yarayn karnaa, maxaa laga maarmi karaa, maxaan hoos u dhigi karaa, su-aashaas oo dhan xisaabta kuma soo darsadaan. marka dhinacaas waa looga haboon yahay. sidoo kale waxaa suurtagala in ay abuurtaba miisaaniyadda inay iska fadhiisato. yacni miisaaniyadda inay iska noqoto miisaaniyad oo iska fadhido oo aanan kobac lahayn inay iska noqoto. tusaalahan haddaan kasoo qaadano, waxaa laga yaabaa inuu ku xeel dheeraado qofka maamulaha ah miisaaniyadda qiimeynteeda inuu ku xeel dheeraada laga yaabaa. yacni uu yidhaahdo 5%, 10%, 20%, laakiin ay u baahan yihiin tiamka gacanta ku haya ama project managerska ay u baahan yihiin miisaaniyad intaas ka yar bay u baahan yihiin laga yaabaa. sidaa darteed waxaa muuqanayso in mar walba tiamka shaqeynaya ay ka hooseeyaan miisaaniyadda. yacni miisaaniyadda mar walba sarreyso, waxaa weeyaan wax iyaga iyo tiamka iyo shaqadoodii wixii kasoo baxay ayaa hooseynaya. sidoo kale waxaa suurtagal ah in layska indhatiro waxyaabaha saameynta ah ee dibadda ka imaanaya oo activity-ga anaga aan sameynayna saameynta ku yeelanaya. yacni tusaalaan haddaan soo qaadano, haddii uu jiro inflation aada u sarreeya, wuxuu saameyn ku yeelanayaa costiskii input materialki costigoodu saameyn ku yeelanaya. marka haddii input materialki costigoodii korukaca ku imaanaya aanan xisaabta ku darsanin, taas micnaheeda waxay ka dhigan tahay miisaaniyadda waxay iska indhatiraysaa waxyaabaha dibadda ugu imaanaya saameynta ku yeelanaya. waxayna si fudud iskaga qiyaasanaysaa in mar walba kobac uu jiri doono, 10% kor loo qaadi doono, 5% kor loo qaadi doono. waxaasay iska aaminsan tahay oo iska qorshaysanaysaa. marka waa mala awaal ayay isu bedelaysaa. marka waxaan soo sheegnay miisaaniyadaha la isticmaalo midda koowaad in la yiraahdo incremental budgeting. warkooda kooban waxaan kusoo koobnay inay tahay in la yiraahdo sanadkii hore actual budgetkeena muxuu ahaa, sanadkan 100% intaas aan ku darno. ceebaha ay leedahay ugu waaweyn waxaan ku sheegnay inay xoogga saarayso oo keli ah sidii fursadaha looga faa'iidaysan lahaa ee aysan xoogga saaraynin sidii qarashaad loo yareyn lahaa. ceebta labaad ay leedahay waxaan ku sheegnay in muxuu ahaay mar walba ay miisaaniyadda koreynayso, la qorsheynayo mar walba ay ka hooseynayso actual budgetka inuu hooseynayo mar walba. sababtoo ah waxay ku dhisan tahay mala awaal laga yaaba in waxyaabo badan oo saameynaya aan xisaabta lagu darsanin. sidoo kale waxaan sheegnay in waxyaabaha saameynta kule ay ka mid tahay external effectska ku imaanaya oo saameynta ku yeelanaya inaan xisaabta lagu darsanaynin. taasina ay suurtagal tahay external factorieska inay mararka qaarkood saameeyaan budgetka sidaas uu ku waafaqi waayo actual budgetka. qaybtaas waxay ahayd qaybta koowaad oo project budgeting. marka la sameynayo budgetka noocyada loo sameeyo nooc ka mid a ayaan intaas ku xusnay. nooca labaad waxaa la yihahdaa asagana qeybaha ka mid a activity based budgeting. activity based budgeting yacnaa waa miisaaniyadda ku dhisan dhaqdhaqaaq iyo activity ku dhisan waay, hawl qabasho ku dhisan waay. yacni miisaaniyaddan waxay ka dhigan tahay haddii dhaqaaq la sameeyo oo activity la sameeyo waxaa weeyaan budgeta jiraya, haddii aan la sameynayna budget ma jirayo. mar walba macnaha budgetka wuxuu ku dhisan yahay activity based budgeting. mar walba top down budgeting aa la yihahdaa. yacni wuxuu ka imaanayaa maamulka kore hoos ayay usoo degaysaa. top down budgeting approach ayaa la yihahdaa. maamulkii sare ayaa waxay xadidayaan inputka loo baahan yahay ka qeyb qaadanaya activitieska si ay u gaaraan ahdaafta iyaga inay rabaan ay gaaraan, ama outputka iyaga ay rabaan inay xaqiijiyaan. marka maamulkii sare ayaa go-aanka ka soo gaaraya, iyaga ayaa qorshaha soo sameynaya, iyagaasi go-aankooda lagu shaqeynayaa. tusaalehaan haddaan soo qaadano company sets an output target. companyga wuxuu dejistay output target oo ah 100 milyan.
يعني revenue uu rajeynaya ama uu doonayo company-gan inuu gaaro sanadkan waa 100 milyan. marka waxay ka dhigan tahay company-gu wuxuu u baahan yahay marka ugu horeyso inuu xadido activitieska loo baahan yahay in la qabto, kadibna waxyaabaha activity-gaasi ka dhalanaya sales target-ka la rabo in la xadido, kadibna in la helo costiga ku bixi karo activity-gaas la qaaday. يعني company-ga wuxuu leeyahay target-keena sanadkan waa 100 milyan oo revenue inaan sameyno waay. okay waa fiican tahay. maxaa la fiirinayaa marka anagoo ku dhisayna activity based budgeting? waxaan fiirinaynaa kow company-gaani marka hore wuxuu u baahan yahay inaan xadidno the activities that we need. يعني waa maxay horta tillaabooyinka aan qaadayno. activity-ga markaan xadidno niraahno ilaa 5 6 7 activity ayaa la qaadaya markaan dhahno, kadibna waxaan fiirinaynaa activity-gaasi haddii la sameeyo maxaa ka dhalan karo oo sales ah, sales target-ka ka dhalanaya muxuu yahay. kadibna activity walba iyo saleska ayaa lasu fiirinayaa. ugu dambeyntina waxaan soo saaraynaa costiga ka dhalan kara activity walba. marka activity walba costigiisaan haynaa, activity walba saleskiisaan haynaa, activity walba revenue-giisa noo soo baxaya, kadibna 100 milyan revenue inaan sameyn karna inaan sameyn karin ayaa inoo soo baxay. يعني waa miisaaniyad nooc ka mid oo la isticmaalo aad u muhiim ah, laakiin ku xiran dhaqaaq ku xiran waay. يعني wax walbo oo anaga aan rabno inaan tilaabo qaadno waxaan fiirinaynaa miisaaniyadda, waxaan qayb ma ka noqon karaa mise kama noqon karaan fiirinaynaa. waxaana ku dhisaynaa activity ayaa asaas noo ah. miisaaniyadda saddexaad ama nooca saddexaad oo miisaaniyadaha loo diyaariyo waxaa la yidhaahdaa value proposition budgeting. macnaha waa miisaaniyadaha ku dhisan mudnaanta qiimaha. يعني mar walba waxaa iskale mudnaanta qiimaha. waxaa la yidhaahdaa qofka mas-uulka ah oo miisaaniyadda mas-uulka ka ah wuxuu isweydiinayaa su-aalahaasuu ku dhisaya budgetingkan markuu sameynaya. su-aalihiis waxay tahay why is this amount included in the budgeting? qaybtan ama qarashkan muxuu miisaaniyadda ugu jiraa? miisaaniyadda qarashkan sababta ugu jira maxay tahay? does the item create value for the customers, staff or other stakeholders? itemkani ma u abuurayaa qiimo customer ama staff ama qof ka mid ah stakeholderska? يعني yaa ka faa'iideysanaya. haddii la sameeyo costigan la gelaya value ka dhalana yaa value u leeyahay? ma customerku value u leeyahay? ma staffku value u leeyahay? stakeholderska nooce ka mid ah ayaa ka faa'iideysanayo value u leeyahay? in marka hore la isweydiiyo. waxaa la isweydiinaya sidoo kale does the value of the item outweigh its cost? يعني value-ga ka dhalanaya u dhigmi karaa qiimaha costiga ku baxaya. يعني haddii cost dheeraad uu ku baxayo value-gana uu hooseeyo waxaa la leeyahay if not then is there another reason why the cost is justified. يعني ma jirtaa marka sabab nagu qasbaysa inaan costigaas galno. haddii value-ga aan helayno uusan costigii u dhigmi karin, macnaheeda su-aal meesha waxaa ka imaanayso maxaa nagu qasbaya costigan? sabab kale ma jirtaa oo nagu qasbaysa inaan costigaas galno. aaday muhiim u tahay value proposition budgeting in la sameeyo. maskax ahaan waxay ku dhisan tahay waxaa weeyaan in la hubiyo mar walbo wax walbo oo la sameynayo, tilaabo walbo oo la qaadayo oo budgetka ka mid ah value-ga laga helay muxuu yahay, business-kan value-gu ka helay maxay tahay. يعني maxaan ka faa'iideynaa mar walba in la taagnaado. value proposition budgeting mar walba wuxuu hadafkiisu yahay in laga fogaado expenses aan loo baahnayn in la sameeyo. يعني mar walba in wax la sameynayo la yiraahdo waa wax baahi loo qabo, expenses-kan waa loo baahan yahay, haddaan loo baahnayn waa inuusan dhicin. hadafka ugu weyn laga leeyahay waa sidaas. waxaa ugu dambeeya budgeting la sameynaya nooc la yiraahdo zero based budgeting. zero based budgeting waxaa loola jeedaa waa miisaaniyad eber laga soo bilaabay, wax ugu ka horeeya hab yaraatay la fiirinayo ma lahan. qayb walbo ka mid ah qaybaha company-ga waxaa la leeyahay miisaaniyadda zero laga soo bilaabaya, dib u dhisida lagu sameynaya. inta badan waxaa la isticmaalaa zero budgeting markii company-ga dib u habeyn lagu sameynayay. markii company-ga مثلا uu company kale la wareego oo dib u qaabeyn uu ku sameynayay. marka dadka maamulka managers waxay awood u yeelanayaan inay qayb walba xisaabaadka ka mid ah si daqiiq ah u daba galaan,
ma baxayo haba yaraatay wax qarasha ilaa la hubiyo oo muxuu ahay manageriska ay ka conform gareeyaan. aad bay u adag tahay miisaaniyadan isticmaalkeeda, laakiin ulajeedada laga leeyahay aada u wanaagsano. hadafka laga leeyahay waxaa weyaan in laga fogaado in qarashaad ay baxaan sabab la-aan ay u baxaan. marka waa inay jirtaa sabab qarashka inaan bixin nagu qasbayso. noocan oo kale oo miisaaniyadaha ah aad ay u tayo fiican yihiin, aad ay u qiimo badan yihiin, laakiin waqti fara badan ayay qaadanayaan markii la adeegsanayo oo la isticmaalaya. yacni tusaalahaan haddaan kasoo qaadno, markay xaalad adag ay kambaniga uu ku jiro oo dib u habeyn restructuring uu ku jiro, ama dhaqaalihiisa hoos u dhac uu ku jiro, ama suuqii laftiisa hoos u dhac weyn uu ka jiro, miisaaniyadani waa midda ugu munaasabsan in la isticmaalo, iyadoo markaasi la fiirinayo waxyaabaha costiga loo fiirinaya, waxyaabaha basic costiska ah iyo waxyaabaha dhamaystirka ah. yacni waxaa jira costis oo dhamaystir un iska ah, macnaha ziyaado iyo dhamaystir iska ah, faajo iska aan ka rabaa. marka wixii faajahay oo dhan baa la iska reebayaa. costiska basiga ah aan laga maarmeynin ayaa lagu dhisayaa. taas ayaa marka waxaa la yihahdaa zero based budgeting. aada u fiican yahay. 4taas nooc oo miisaaniyadeed ayaa jiro. waxaan rajeynaya insha allahu tacala inaad fahanteen kambaniga aada teebaa munaasib u ah, teebaad hadda u isticmaali kartaa. adiga ayaa si fiican u fahmi karo. waxaan rajeynaya insha allahu tacaala inaad fahanteen. aada ay xalaqada inooga dheeraatay. intaasaan kusoo gabagabeynayna. wabillahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.